kulanti wacan dhammaan daawadayaal waa barnaamijkeennii maanta iyo maalinlaha Juba. barnaamijkeenna maanta waxaan ku soo qaadan doonaa wafdi ka socda dowladda Itoobiya oo maanta gaaray magaalada Makalle ee gobolka Tigray. Faysal Cali Waraabo oo ka hadlay dooritaanka liiska xisbiyada siyaasadda ee Somaliland, xildhibaanada Koonfur Galbeed oo dowladda federaalka ku eedeeyay qalalaasihii Baydhabo ka dhacay. qodobadaas ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna maanta iyo maalinlaha Juba. balse intaanu barnaamijku gudagalin fadlan noo faafi barnaamijka adigoo isla markaana ku share gareynaya asxaabtada baraha bulshada. haddaad barnaamijkeena ku cusub tahay fadlan nagu soo biir adigoo isla markaana subscribe dhahaya. mahadsanidin. aan ku bilaabnay waxaa gelinkii hore ee shalay ka degay caasimadda gobolka Tigray ee Makalle wafdi ka socday dowladda Itoobiya oo uu hogaaminayay afhayeenka baarlamaanka Itoobiya Tekese Tafo. ayadoo wafdiga halka ay ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta u sareysa TPLF-ta ee gacanta ku haya maamulka gobolka Tigray. ujeedada socdaalka wafdigan ee magaalada Makalle ayaa lagu sheegay inay u kurgeli doonaan qaabka uu u dhaqan galay heshiiskii nabadeed ee dhawaan gaareen dowladda Itoobiya iyo TPLF-ta sida ay baahiyeen warbaahinada kala duwan ee ku hadla afka dowladda iyo kan TPLF-ta. sidoo kale waxaa socdaalka wafdigan ku heliyay madax ka kala socotay laamaha kala duwan ee dowliga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn sida bangiyada, isgaarsiinta iyo mas'uuliyiinta kale. wafdigan ayaa noqonaya kii u horeeyay oo muddo 2 sano ah kadib gaaray gobolka Tigray, gaar ahaan magaalada Makalle, ayadoo arrintan ay muujinayso in heshiiskii uu dhaqan galay. socdaalka wafdigan ayaa ku soo hagaagaya xilli la filayo in maalmaha soo socda Makalle ay gaari doonaan wafdi ka socda Midowga Afrika uu wehelinayo madaxweynihii hore ee Kenya Uhuru Kenyatta. dhanka kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Somaliland UCD Faysal Cali Waraabe ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay war saxaafadeed ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada taasoo ay ku sheegeen inay dhaceen liiskii sharci ee xisbiyada kulmiye wadani iyo UCD. Faysal waxa uu sheegay in guddiga diiwaangelinta aanay shaqadoodu ahayn inay ku dhawaaqaan goorta uu dhacayo liiska xisbiyadu, isagoo madaxweynaha ku eedeeyay inuu u soo yeeriyay warka ay warbaahinta la wadaageen. hadalladiisii waxaa ka mid ahaa guddigaasi meel ay ka soo gasho arrinta axsaabta ma jirto, waxaan u aragnaa inay tahay wax loo yeedhiyey oo lagu yiri sidaa dhaha. waxa uu sheegay xisbiyadu ay sharciyadoodu weyn karaan keliya marka inta ay doorashadu galaan laga adkaado, isagoo sheegay in sida madaxweynaha iyo golaha guurtada ay xisbiyadu u sii joogi doonaan muddadoodii sharciga ahayd dhammaatay. waxay weeyi karaan maqaamkooda ayaga oo doorasho gala oo doorashada looga adkaado. waa sida uu isagaba u fadhiyo isagoo waqtigiisa dhammaaday oo uu haddana magacii madaxweynaha weli sito, ayuu yiri Waraabe. waxa uu sheegay in go'aanka guddiga diiwaangelintu aanu soconayn isla markaana uu madaxweyne Muuse Biixi doonayo in Somaliland baabi'iyo, isagoo sheegay inuu madaxweynaha hay'adaha doorashooyinka faragelin ku hayo. ugu dambeyntii qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay qalalaasihii magaalada Baydhabo ka dhacay iyo in dowladdu faragelin ku hayso arrimaha siyaasadeed ee Koonfur Galbeed. xildhibaanadu waxay sheegeen in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed loo adeegsanayo in qalalaaso looga kiciyo Koonfur Galbeed. waxay dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen inay faraha kala baxdo arrimaha siyaasadeed isla markaana ciidamada ka soo baxay furmahooda dagaalka dib loogu celiyo. dhinaca kale xildhibaanada ayaa sheegay in baarlamaanka Koonfur Galbeed uusan sameyn muddo kordhin balse ay sameeyeen iswaafajinta muddo xileedka madaxweynaha iyo tan baarlamaanka. hadalka xildhibaanada ayaa ku soo aadaya xilli madaxweynaha Koonfur Galbeed uu Muqdisho shalay kaga qayb galay shirka madasha qaranka oo ay isugu yimaadeen dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeena maanta iyo maalinlaha Juba. mar labaad aan idin xasuusiyo dhegeystayaal, fadlan sii faafiya barnaamijka adigoo isla markaana ku share gareynaya asxaabtaada baraha bulshada. haddaad barnaamijkeena ku cusub tahayna fadlan nagu soo biir. magacaygu waa Ismaaciil Kulmiye, aniga iyo bahda wargeyska maalinlaha Juba waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh. nabadgelyo.